waxaan rabaa falanqayn kooban inaan ku sameeyo hadalkii Cabdullaahi Cumar Abshirow gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya oo kamid ahaa waftigii hogaaminayay doorashadii Marwo Bashiir ee ay uga qayb galeysay gudoomiyaha baarlamaanka adduunka. doorashadaas oo tartankeeda isugu soo hareen 4 gabdhood. 4 gabdhood oo ka kala socday Soomaaliya, Tanzania, Senegal iyo Malawi. iyadoo ay guush markii dambe ku raacday Tanzania. guushaas way sababteeda lahaayeen gudoonka baarlamaanka Soomaaliya. maxaan Tanzania kaga bedelanay? maxaa inaga soo gala? waa dal caynkee ah. dhaqaale intee leeg baan ka heli karnaa? ganacsiga Soomaaliya iyo Tanzania muxuu salka ku hayaa? Soomaaliya maxay kaga bedelataa Tanzania ganacsigeeda? Tanzania faa'iido intee leeg bay noo haysaa? hadaladii gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya wuxuu yiri kursiga Marwo waxaan kaga bedelanay Tanzania kamid noqoshada bulshada bariga Afrika. Soomaaliya ma Asia ku taalay? ma Europe ku taalay? ma Latin America ku taalay? awalba waxay kamid ahayd Soomaaliya bariga Afrika. kamid noqoshadeeda bulshada bariga Afrika awalba kamid baahayd. waxada ay noqonaysa maaha bulshada Soomaaliyeedna in la marin habaabiye maaha. bal ila dhageysta hadalkii gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya. arina in dowladda Soomaaliya inay ku biirto East African Community bulshada bariga Afrika ee Tanzania garab u siinaysay iyo sidoo kale kursi qaramada midoobay ah jiray marka Tanzania iyo Soomaaliya marka arina in dowladda Soomaaliya inay ku biirto East Cabdiraxmaan Cabshakuur gudoomiyaha xisbiga wadajir waa xildhibaan cadaaliya xaqiiqadan aan mar la kala laaban. gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha gudoonka baarlamaanka Soomaaliya waxay cadeeyeen Marwo Bashiir inay ka tanaasushay tartanka kursiga. laakiin dhowr bilood ka hor ololihii tartanka kursiga baarlamaanka Soomaaliyeed oo dhan wuu wada ogaa. gudoonka baarlamaanku way ogaayeen, dowladda Soomaaliyana way ogeeyeen. waxaana cadeeyay Cabdiraxmaan Cabshakuur hadaladiisina waxaa kamid ahaa sida tan. gabadha horta tartanka maalintii galeysana waa la wada ogaay baarlamaanka wada taageersanaa. anigana sidii dadkii gooniga maadaama isleedahay qof siyaasadda saameyn ku leh waaye dadkii ay sida goonida ugu codsataan inaan taageero oon codkayga iyo wixii aan karaankayga. haddaba Cabdiraxmaan Cabshakuur xaqiiqada uu ka hadlay iyo mas'uuliyadda inay yeelanayaan gudoonka baarlamaanka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabshakuur weligii yaalihii runta kama gaban. sidaad wada ogtiin Cabdiraxmaan Cabshakuur waxay ishayeen hadda ka hor madaxweynihii dalka Soomaaliya madaxweynaha ka maxaa Cabdullaahi Farmaajo wuxuu u geystay weerar. waxaa loo geystay taadi sida ay tahay waraysi baa laga qaaday. waxaa la weydiiyey habdhaqanka maxaa Cabdullaahi Farmaajo ka waran marka laga tago kursi jacaylka. maxaa Cabdullaahi Farmaajo hantida qaranka ma boobo, musuqmaasuqna sal kuma laha. afkiisu kaga dhawaaqay. maantana xaqiiqada kama gaban. sida la aligeed qarannimada Soomaaliya waxaa god madow ku riday gudoonka baarlamaanka Soomaaliya. Tanzania waa dal caynkee ah. waa dal inaga dhaqaale inooga baahan. burburkii dalka Soomaaliya dadkii qaxay maxay u qabteen? ma magangeliyeen intee la eg beesiyeen? ma aha dalkeenu wax ka bedelanayna Mareykan, ma aha dalkeenu wax ka bedelanayna Yurub, ma aha dalkeenu wax ka bedelanayna Ruush, ma aha dalkeenu wax ka bedelanayna China. waa Tanzania ku taala bariga Afrika dadkeedu yahay faqri aan awoodin hal qof oo Soomaaliyeed xataa inay magangeliyo siiyaan. ka dhaqaala badannahay, ka hanti badannahay, ka maalqabeensannahay, ka nolol wacannahay, ka siyaasad horumarsannahay. kursiga Marwo ay u tartamaysay waxaanu ku bedelanay kamid noqoshada bulshada bariga Afrika. waa hadalkii gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya. waa nasiib darre inteeda leeg. Soomaaliya Asia kumaynan olin. waxay kamid kursiga kamid noqoshada bulshada bariga Afrika. Soomaaliya xaq bay u leedahay, halbowlay u tahay bariga Afrika. waa istiraatiijiyadda gacanka Carbeed. dhaqaalaha Afrika ay inteeda badan bariga Afrika isticmaalo halka ay ka soo degaan waa Soomaaliya. hadday tahay Ethiopia, hadday tahay Kenya, hadday tahay Tanzania, hadday tahay Uganda, hadday tahay Djibouti, inteeda badan waxaa halbowlo u ah Soomaaliya. sidaad ogtihiin
wadamada bariga Afrika iyo wadamada galbeedka Afrika iyo bartamaha Afrikaba xornimadii ay qaateen waxa halbowlo u ahayd Soomaaliya Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre waxaad ogtiin inuu ka qayb qaatay wadamo badan xornimadooda sidii ay gudumaystaa isaga kicin lahaayeen Boortaqiiska, Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga waxaad ogtiin xilligii la sameeyay yani Smeer ma muuqdeen Rhodesia ma maageen Boortaqiis ma mariyeen wanka ma casha ii qabo adna gowrac ii mari dhiigana aan muudsado Afrika isma qalo midab gumaysi diida Soomaaliya hoggaanka u haysay maanta Tanzania oo faqriya oo hal qof